baarlamaanka Soomaaliya horta hadaan ku hormara arintaas laba mid ayay noqon kartaa markii dhanka qaanuuniga la fiiriyo waxay noqon kartaa inay ku raacaan xeerkii golaha wasiirada inuu yiraahdo waa saxan yahay oo ay ku raacaan iyo in ay ku diidaan oo ay yiraahdaan maxaa la yiraahdaa xeerkaas yani golaha wasiiradu ay qaateen go'aankaas qaraarkaasi waa go'aan qaldan labadaas point ayaa dhanka qaanuunka dawliga marka la fiirinayo ayay noqonaysaa laakiin waxa jirta markaan ka fiirino Soomaaliya meesha ay marayso iyo baarlamaankii oo taladii maanta gacanta ugu jirta ahna matalayaasha shacabka in ay fiiriyaan Soomaaliya meesha ay marayso xaaladana ay ku daraan xeerinta danta Soomaaliyeed iyo talada uga banaan hadda sababtoo ah say wax u dhacaan lama yiraahdo say wax looga qabtay aliyaalayaala waxaan rabaa inaan raacsado arintan sidee wax looga qaban karaa arintan hal qodob ayaa dhiman ayaan isleeyahay in wax looga qaban karo waa hadalka madaxweynaha oo ah يعني مسؤولك ugu sareeyay dawladda golaha fulinta waa madaxweynaha oo ah kii shacabku ay u han weynayeen inuu kalmad ku aadan dadku waxa ay tabanayaan iyo dawladnimada Soomaaliya si ay ku socon lahayd inuu dadka la hadlo qanciyo kuna hadlo hadalka golaha wasiirada wax ka duwan oo ka yani ku hagaagsan si ay dadka Soomaaliya u qancaan aniga maanta waxa ay soo saarayaan wax badan oo wax bedeli kara waaye Soomaaliya hadii la fiiriyo iyo hadii dhanka wasiirada go'aanada ay ka soo saareen hadii loo fiiriyo waana wax dadka dhan dhagaha ay ku wada hayaan baarlamaanka maxaa ka soo bixi doona wasiirada waa ogaana waxa ay soo bixiyeen dabcan ani ra'yigayga marka qaato dadna ay qaarkood ay u raayeen ani waxaan rajeynayaa in baarlamaanka ay ku ra'yi noqdaan wasiirada maxaa yeelay wadankani wadan hadda kororaayo oo soo baxayo waaye siyaasaduna sideedaba ma ahan wax mar walbeeto qofku iskala hadli karo soo dadkani madaxan leenahay madaxda warkooda haday aan la qaadan waayana waxaan ku noqonaynaa wadanku meesha uu ka soo baxay inaan ku laabano wadankeena hadda koraya waan rajeynaa war dhaxalgal ah inay baarlamaanka ka soo saari doonaan waqtigii lagu jiri jiray yani qabaa'ilada iyo baarlamaanka oo mid iska tabar daran oo ahaa jiray waa laga soo gudbay dadku waxa weeyaan baarlamaanka maanta jooga waa baarlamaan la isku hadlay karo runtiina garanayo aayaha iyo ilaahay kuma daraade waxyaabaha shacabku ay doonayaan waana baarlamaan ka turjumayo baahida dadweynaha anigu ka aragtahan waxaan rajeynayaa baarlamaanku in aysan go'aan inuu ka soo bixi doono go'aan bulshadu 100% ay ku qanacdo waxaan rajeynayaa go'aankoodu inuu noqdo inuu noqon mid dawladda yani lagu rido inuusan noqon dabcan qalad wuu dhacaa qof bilaadan ah qalad wuu ka dhacaa waxaan rajeynayaa qaladkii dhacay haduuba ahay qalad oo sharciyan waa qalad loo yiraahdo inaan qalad lagu sixin isla markaana la xalliyo go'aan yani si dadka bulshadu ay u noqoto yani dal hormarsan saan u noqono isla markaana aan u helno xal guud dawladdiina aanan yani lugaha aanan uga dhagine aan yani hore aan u wada socono qaladkiina ay noqdaan baarlamaanku kuwa sax aysan noqon kuwa qalad ku saxo dawladii yani wadan kasta waxa jiro low ah wadun nin maxbiis ama qof maxbiis uu ka soo baxsado wadankaas in wadankiisa dib loogu celiyo marka fikirka ah in bulshada Soomaaliyeed waxaan rabaa aysan aaminin dawladeena aysan ka aaminin fikir qalad ah that's why aan leeyahay maxay tahay dawladdu waa dawlad dhisan muddo 2-4 bilood wax ka yar waana dawlad hore u socota saanigu aaminsanahay qaladaadka jirana iyo isfahan waaga dhacayna inuu yahay mid indirect ah oo laga dhigo mid direct ah qaladaadkana dib loo saxan rajeynaya haduu Ilaahay yiraahdo